subscribe for more videos. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل يوتيوب جناك سبسكرايب صار مقال كان لايك صار أدبادو مهات سنتاي مثل هذا سنة كان وصولا بنا مدحوين فرماجو فضلا كومنتين اللي وداك مهات سنة داو شو عن مقال كان arrimaha dhaqaalaha waa la dagaalamay musuqmaasuqa waxaan keenay diiwaan gelin shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan kor u qaadnay dakhligii dalka waxaan si toos ah oo joogto u bixinay mushaharaadkii shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan joojinay sida khaldaneed lagu bixinayay maxaan ku raahdaa kontraadyada waxaan aad ula shaqeynay si dhow ula shaqeynay World Bank-ga iyo IMF-ka iyo African Development Bank-ga iyagoo runtiina siiyay oo ay ku mahadsan yihiin siiyay budget support waxay kaloo nagala shaqeeyeen debt relief-ka afinta deebankii aan qabnay oo aan gaarsinay ilaa 2 bilyan ku dhawaad in laga cafiyo aan sugayno haddii isbedelkan uu sii socdo 3 bilyan sanadka soo socda in naga cafiyaan maxaa yeelay waxay aamineen isbedelka socda inuu dhab yahay waxay aamineen dawladdan inay tahay dawlad hufan oo nadiif ah ayay aamineen saas darteed wada shaqeynteena aad iyo aad yaan isugu soo dhawaanay arrimaha security-ga way saamaysay waxaan la dagaalanay iyada lafteeda musuqmaasuqa waxaan sameynay registration iyo diiwaangelin ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan waxaan kor u qaadnay mushaaraadkooda waxaan bixinay mushaaraadkooda si joogto ah inkastoo ay yar tahay waxaan xaqiijinay oo aan improve garaynay tababarkooda iyo tayadooda iyo tiradooda ciidanka qalabka sida waxaan xakameynay hubka iyo rasaasta oo hal ballot oo annagu aan leenahay aysan jirin wax suuqa yaala oo aan xakameynay waxaan ka xoreynay shabaab sabiid iyo caanoole owdhigle jannaale iyo marka waxaan develop garaynay Somali transition plan oo aan ku bedelayno AMISOM aan u bedelayno ADMIS oo mandate-kooda aan bedelayno iyaguna ay insha Allah waqtigooda ka dhamaanayso 2024 waqtigooda ka dhamaanayso arrimaha waxaan ku raahdaa bulshada waxaan barmood garaynaa annaga patriotism yaan barmood garaynaa ummadda Soomaalida waxaan kula talinaa inay qabiilka ka fogaadaan rajadoodii kor baan u qaadnay waxaan ku dhiirigelinaa midnimadooda waxaan bixinay service delivery ama adeega bulshada waxbarashada iyo caafimaadka